أودي الرصاصيو إبلا وحدميسيو أفنتريغا قيقيو هدان أقبي هايستون أذكر إسرائيل وانك آري لايو أغونتي للايو دلانكي لآسي ورقون قويسي قالدو إله بان كدارتي وي إذي لايين أرجلي عربادنا أيغو أودلو كاروه أكتوديال ويكا آموسينو أري كريا مي أرن إلهي أرلائيغا إذي الكيد أبوراو أذيغا أودلو أمر كاغو فليو أدونكي إسواليو كي أود معينبا أذيغا أيان قرى البابلا أولا به إسرائيل يهودي مسلم كي أذيسو دلانكي أسقيسي إلهو أودا توسي قال كأيغا maanta dareemkaygu aad iyo aad ayuu u kacsan yahay magacaygu waa Sheekh Xamza Maxamed Aadam waxaan dunida islaamka ugu baaqayaa qof kasto ashaatay oo laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ila daafiya adduunka jooga inuu Falastiin uu garab istaago u duceeyo niyada uga duceeyo afka uga duceeyo adinka uga duceeyo oo garab galo ayaan ka codsanayaa ummadda islaamka meel kasta joogaan maadaama ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay kullu nafsin dha'iqatul mawt wa nabluukum bisharrin wal khayrinatan wa ilayna turja'un adduunyada lama joogayo ilaahayna subhanahu wa ta'ala wayna weydiin doonaa haddaynan garab istaagin Falastiin maanta ilaahay subhanahu wa ta'ala wayna weydiin doonaa wana inuu ciqaabi doonaa muslimiin baan nahay ee tawxiid ah waa inaan walaalayaal qof kasta oo muslim ah dhiigiisa uu kiciyo oo garab istaaga Falastiin walaalayaal ummadda islaamka hadday ilaahay baryaan oo mid noqdaan qalabada yaani iyaga yeelan haya gaalada awal barnaamij Muhammad sallallahu wa sallam alayhi isagoo asxaabtiisu ay aad iyo aad u yarayd oo macnaha aan badnayn waad ogeydeen macnaha jabki iyo halaagu nabi maxamed u geystay kam min fi'atin qalilatin qalaba fi'atin kathiratin biidnillahi wallahu ma'a sabirin ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay imisa in yari in badan ay ka guuleysatay marka dadka islaamka walaalayaal meel kasta ay joogaan darafyaha caalamka waxaan ka codsanayaa inay Falastiin ay walaalayaal ay garab istaagaan waad aragtaan gabdhaha iyo ciyaalka iyo maatida sida ay u duqeynayaan naftu ko ay ka baxdo way ka baxaysaa qofka aan garab istaagin in maanta Falastiin aan garab istaagin muslimba ma aha waa muslim ma oran karo waa muslim qofkaasi lama oran karo waa mulxid baa la oran karaa waxa weeye walaalayaal ilaahay maalin iman doonta wajiga ilaahay hor istaagsan yahay oo cidna ka adkayn maanta haddaynan garab istaagin ilaahay qiyaamaha wayna qabsanaya waxaan idin ka codsanayaa walaalayaal meel kasta oo caalamka aad joogtaan ummadda islaamka inaad kacdaan oo ilaahay ka cabsado oo kaca aad baan uga xumahay Falastiin inay lagu duulo oo la laayo oo dalkeeda laga barakiciyo oo maxay ahayd lagu dilo dhulkeeda islaam baa tahay darteedna loo laayo aad baan uga xumahay wax tabarana aan u haynin yuhuudda iyo Mareykanka iyo wax isu kaashaday iyo maxay ahayd yuhuudda iyadoo ay maxay ahayd kuwa ahlu kitaabku sheeganaya ay isugu tageen ayaa waxa uu heelinaya shuuciyiin oo diin haysan kuwa islaamka ahana way ka seexdeen carab way ka seexatay carab waxay ka baqayaan Mareykan ilaahay inay ka baqaan baa fiicnaan lahayd markay ka baqayaan Mareykan markay ka baqayaan inay Allah ka baqaan baa fiicnaan lahaa waxaan leeyahay Allahu akbar ilaahay yuhuudda hoos ha ka dhigo wixii raacsan ilaahay hoos ha ka dhigo ilaahay muslimiinta kor ha u dhigo ilaahay Falastiin duliga Allah ka dulqaado ilaahay xornimaha siiyo ilaahay diinta islaamka baytul qudus ilaahay yuhuudda iyo najaasadeeda ilaahay ha ka banayo ilaahay kor ha ka dhigo ilaahay baraakiibta badda taagan ilaahay mawjadaha ku kiciyo diyaaradaha wada maray ilaahay dabaylaha ku kiciyo iyo duufaan ilaahay idinkiisa aan iyaga lala qabin ilaahay madfaca ay ku ridaan muslimiintu ilaahay dab iyo holac ha ka dhigo ilaahay ha ku baabi'iyo insha Allah biidnillahi kariim saasaan ilaahay ka rajaynayaa walaalaha iyo Falastiin macnaha waxa weeye dhibaatada ay u geysanayaan yahuud cadawga ilaahay cadawga islaamka cadawga macnaha waxa weeye dadka oo idin ay leeyihiin oo kaliya ay akoonkan saaran waa yahuud nimanka la yiraahdo ama reer bani Israa'iil waxa weeye reer bani Israa'iil weligoodba macnaha waxa weeye xaasidnimada ay macnaha u qabaan bila aadanka intiisa kale iyagoo macnaha dadka ugu tirada yar ah ama ugu aqliga xun ah ayay waxay jecel yihiin in maaragtay dad yowga caalamka jooga oo dhan iyaga ay fikirkooda ku shaqeeyaan meesha la yiraahdo Baytul Maqdis iyo ardu Sham waxa weeye waa guri islaam waa gurigi macnaha waxa weeye rasuulullaahi maxamed alayhi salaatu wasalaam laga dheelmiyay waxa ku yaala beedka ilaahay ee macnaha waxa weeye karaamada iyo barakada badnaa ee rasuulkeena anbiyada oo dhan uu ku tujiyay loogu jimciyay marka ma yeelayno
waxa weeye mana noqonayso in macnaha waxa weeye ay xataa ay degaan ku yeeshaan walaalaheena aad ugu dhibaataysan halkaasi dhibaato ba'an ee halkaa ku haysto loo baahan yahay inaan ka qayb qaadano waxa walba aan ugu qayb qaadan karno hadday noqoto hadal waxaad maanta aan awoodno oo ugu weyn ah inaan walaalaheena ku taageerno aan u duceyno mar walbana aan ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu barino inuu ilaahay subxaana wa tacaala gaalada ka qabto iyo cadowgaas waxaan aad uga xunnahay dadka islaamka oo Falastiin oo aad iyo aad loo duqeynayo muslimiinta ah oo macnaha caruur iyo rayid iyo dad walba ah annaga reer Kismaayo ah aad iyo aad baan u dhaleynayna arrintaas aad iyo aad baan uga xunnahay mana ku fiirsan doono nin allaala ninkii macnaha jihaadkaas aadi karo waa arrin jihaada ha laga fiirsado marka saakana waxaan u soo baxnay inaan mudaharaadno oo aan dadkaas muslimiinta oo masaakiinta oo caruurta ah la duqeynayo aad iyo aad aan uga xumaanay aad iyo aadna waa u taageeraynaa Falastiin waxaan aad iyo aad uga xumahay dagaalada ka socdo Falastiin oo lagu soo duulay yuhuudda ay ku soo duushay marka dawladaha islaamkana waxaan leeyahay ha loo gurmado meel kasta oo ay joogaan ha loo gudmo Falastiin maxay ahaydoo dawladaha ku soo duulay oo Mareykanka ay ka mid tahay muxuu ahaa Ingiriiska ayagana waxaan ilaahay uga baryaynaa diyaaradahooda xabadda ay ridaanba meel cidli inuu ilaahay ku rido aad iyo aad haddaan islaam aad iyo aad aan Falastiin uga xunnahay Falastiin duqeynta aad iyo aad u baahan oo ka xumahay qof waliba muslim meel walba uu joogo waxa loo baahan yahay inuu ka danqado yahuuda duqeynta ay ku hayso khaasatan darar dhaweed isbitaalka ay duqeeyeen caruur badan oo meesha ay ku leeyeen aad iyo aad ku xumaa meesha dan joogi lahaa fastuwan ana fadlan lahaa wadayalkan ka qayb gali lahaa taa daraadeeda yahuud waxaan baaq ugu dirayaa in oo yani maaragtaa Falastiin aysan ka awood badan karin hadday maaragtaa qof waliba muslim meel walba uu joogo duulaan ay qaadaan yahuuda oo meesha laga xoreyn karo dareenkayga aad iyo aad ayaan uga xumahay walaalaheen muslimiinta oo la xasuuqaayo waxaan aad iyo aad waxaa la jiro u fiican inaan wax ka qabano oo bulshada reer Kismaayo dibadbaxyo aan ka sameeyno oo aan ka hadalno dareenkeena in walaalaheen aan u gurmano arrintaas aad iyo aad ayaan uga xumahay